waxaan halkaan baaq ugu dirayaa maxaa la madaxweynaha hadda la doortay waxaan leeyahay madaxweyne horta waxaa jiro dhalinyaro aad u badan oo halkaan joogo dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho cadey oo dad aan dhalinyaro aan shaqo haysanin waxaa horta magaalada ku soo batay dhalinyaro muddo badan 20 sano wax la barayay oo master degree dhamaan wato oo haddana waxa arkaysa oo bajaaj wado aan u qalmin inkastoo siyaasaddu ay tahay maxaa la 4.5 waxaan leeyahay halkaas aan laga daayo dad waxaa jiro dhalinyaro haddana Soomaalida badnaan waxay ku badan yihiin ninkan qabiilkiisa waa Landheere ama qabiilkiisa wuxuu ku jiraa dawladda halkaas ayaan baaq ugu diraa waxaan halkaan si baaq ugu diraa madaxweyne horta waxaa tiri maxaa la Soomaaliyiis iyo dalhashiis baa tiri doonaysiis baa tiri marka halkaas aan waxaan ku leeyahay madaxweyne inkastoo horta qof waliba oo xilbaankiisa oo siyaasadda uu ku jiro laakiin dad waxaa jiro aan micnaha qof aan laga yaab aan qof aan matalo oo igu jiro siyaasadda matalo aan haddana wax ii qaban karin aan ii awoodin mudan madaxweyne waxaan halkaan baaq ugu dirayaa aniga oo hadlayo ururka ama haweenka dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed madaxweyne waa inaad si gaar ah noo fiirisaa adigoo fiirin ninkan waa qabiilkayga ninkan waa uu ka yahay waxaan ku leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyartii aad bay u soo bateen jaamacadihii way soo dhameeyeen aqoon-yahan ayaa magaalada buuxaan dhalinyarada si gaar ah loo fiiriyo xagga haweenka ina waxaan rajaynayaa siyaasadan hadda dadka madaxweynayaasha soo sharaxay way duqoobeenee dhalinyaro waxaa jira aqoon-yahan ah oo magaalada buuxaan si gaar ah loo fiiriyo Bimalow Center moolka Bimalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa moolka Bimalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimalow Center moolka Bimalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimalow Center xarunta ganacsiga ee Bimalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimalow